Wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi howlgal ay ka sameeyeen ciidamada xasilinta ee ku sugan magaalada Gaalkacyo. Wararka naga soo gaaraya Gaalkacyo ayaa waxa ay tilmaamayaan in habeenadii lasoo dhaafay halkaasi howlgal lagu xaqiijinayo amniga ay ka sameeyeen ciidamada xasilinta ee magaalada Gaalkacyo. Ciidamadan ayaa sidoo kale waxa ay baarayeen xaafado ka tirsan magaalada kuwaas oo ku dhumaalaysanaya koox burcad xilliga habeenkii dhac u geysta bulshada ku nool xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Gaalkacyo. Ciidamada oo wata gaadiidka gaashaamana ayaa lagu arkayay xaafadaha iyo wadooyinka waaweyn ee degmooyinka Baraxley, Garsoor iyo Sraac oo dhammaantood ka tirsan Gaalkacyo, kuwaas oo baaraya dadka soo galaya iyo kuwa ka baxaya maadaama xilliyadii lasoo dhaafay halkaasi ay martigelisay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah kuwaas oo kula kacayeen kooxo burcad oo xilliga habeenkii dhac u geysta shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo. Ma ahan markii ugu horeysay oo howlgal ceenkaani ah ay ka fuliyaan ciidamada xasilinta ee ku sugan magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo ay ku bacsanayaan kooxo burcad oo xilliga habeenkii dhac u geysta shacabka ku nool magaalada Gaalkacyo. Xaafadaha Sraac iyo Garsoor ayaa la xaqiijiyay inta ugu badan howlgallada ay ka sameeyeen ciidamada xasilinta Gaalkacyo maadaama halkaasi ay ku badan yihiin koox burcad oo xilliga habeenkii dhac u geysta shacabka kuwaas oo ka qaadanaya agabka ay wataan oo ay ugu horeeyaan moobilada gacanta lagu qaato iyo lacagta ay wataan dadka shicibka ah ee iskaga kala goosha xaafadaha magaalada Gaalkacyo. Ciidamada xasilinta magaalada Gaalkacyo ayaa laba jibaaray howlgallada ay ku bacsanayaan maleeshiyaadka xilliga habeenkii dhac u geysta dadka ku nool magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dhinaca kale, maamulka Galmudug ee ka arrimiya koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa dhowaantan waxa uu sheegay in ay cagta ay mariyeen koox ku howlaneyd isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya sida khamriga iyo xashiishka, isla markaana ay sheegeen in ay la dagaalami doonaan. Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo dhowaan la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay ka gungaari doonaan isla markaana ay ciribtiri doonaan kooxaha falalka amni dari ka wada magaalada Gaalkacyo ugu horeeyaan kuwa soo geliya khamriga iyo xashiishka ee maandooriyaha isla markaana lagu isticmaalo xaafado ka tirsan magaalada Gaalkacyo. Ismaaciil Abuukar Kasamaal Group, Muqdisho.